بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر كان نو سعودي سيدا wax u baran lahayd una fahmi lahayd casharada jaamacadaha waxaanu ka soo hadalay 5 learning of style waanu ka soo sheegnay inay yihiin aragti qofku inuu wax ku barto maqal inuu ku barto inuu wax ku barto by order isku xigid sida wax la isugu xigay inuu qoro sawir inuu wax ku barto iyo ficil inuu wax ku barto waxaan fiirinaynaa marka eyes and learning inuu qofku indhaha wax ka barto inuu dhawax wax ka barto ayaanu sii faaqideynaa indhaha markaan u soo noqono si aad ku ogaatid in aad tahay qofka indhaha wax ku barta salahan ayaad qaadanaysaa haddii aad jeceshahay inaad daawato filimada ama paintingka rinjiyeynta inaad ku xeel dheer tahay ama aad jeclaashay inaad ku lug leedahay aad jeceshahay shaqooyinkaas ama indhahagu inta badan ay yihiin markii wax arkaanba kuwa automatic hore wax ka fahmaya inta badan waxaa tahay qofka visual learner-ka visual learner waxaa la yiraahdaa qofka wuxuu arka mar dambe aan raadinayn ee markaba fahmaya waxaasu sida ay u yaalin tusaale haddaan ku siiyo waxaa laga yaabaa maanta in adoo wada socday saaxiibka ay ka hor yimaado nin kale oo isgaranaysaan oo adiga aad macrifatihiin marka ay salaantaan waxa laga yaabaa ood kala gudubtaan in saaxiibka su'aal ka weydiiyo qofkii oo ku rooniyo ninkii hebel ah hadda ka hor yimid wajigiisa barta noocaas ku taalay halkaas oo calaamad ku lahaa ama waxaasa ka madooba ama saasa ishu saasahay ama maxaan ku yiraahdaa muuqaalkiisa waxa ku yaalay calaamad saasa wajigiisa ku taalay taasoo laga yaabo aduu inaadan arkinin marka qofka calaamadu ku arkay waxa laga yaabaa inay dhab tahay laakiin adiga marka fiirinaysid muuqaalka qofkan picture kama qaadan laakiin qofkan Ilaahay wuxuu siiyay sida kaamarada qofka maskaxdu hal mar wax arko inuu qabto hadaa qofka noocaas tahay oo filimada aan iloobaynin ama painting haduu arko maskaxiisa ku jiro mar walba aan halmaamaynin waxa tahay visual learner sida darteed isku day wax walba inaad indhaha saartid si aad u baratid sidoo kale hadaa tahay dadka wax dhageysta hadaa jeceshahay inaad dhageysto music ama lecture sidoo kale inaad dhageysatid ama ka qayb qaadashada shaqooyinka la xiriira dhageysiga tahay auditor learner qof dhagaha wax ka fahmaa tahay sida darteed waxaad xoojisaa inaad casharada duubato waxaad xoojisaa inaad dhageysiga badisid si aad u baratid wixii aad doonaysid inaad baratid inta badan dadka visual learnerska iyo dadka auditor learnerska labaduba mid walba meeshuu ku xoogan yahay ayuu xoojiyaa si uu u fahmo meeshuu u socdo isla markaana kama marna inaad picture fiirisid kama marna inaad order fiirisid kama marna practical hadii laga baahan inaad sameysid laakiin waxa aad ku xooggan tahay haday isha tahay in aad wax ka qabato ama ay dhigta tahay inaad wax ka maasho kii aad wax ku fahmaysid xooji labadaas hadii aad la yiraahdo kuwa kalena waanu eegaynaa insha Allah ta'ala